بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله waxaan kusoo gudbin doonaa marka chapterkeena afraad ee epidemiology-ga chapterkaas oo markaa quseeya ama ka hadlayo concept of communicable disease marka aan fikir ka qaadano bal xanuunada faafa ama la isu gudbiyo ama waxa loo yaqaano la isqaadsiiyo bal waxaynu eegaynaa maadaama epidemiology-ga uu had iyo jeer ka hadla xanuunada ku baahsan bulshada dhexdeeda qaabkii lagu xakamin lahaa iyo ogaanshiyihiisa iyo ka shaqayntiisa bal waxaynu caawa fahmi doonaa marka fikir ku saabsan xanuunada faafa sida badan ba xanuun marka in ka hadlayno waxaa loo qaybiyaa marka labo disease markaan sheegayno waxaa la yidhaahdaa organic iyo inorganic marka xanuunna marka organiga wixii keenay ama sabab la garanayo sabab leh iyo inorganic xanuunna marka aan sabab lahayn ama wixii keenay inta badan aan la fahamsanayn inkastoo xanuunada inorganic naftirkooda la oran jiray hadda naftirkooda qaar ka mid ah mental illness-ka lagu daray sida hysteric waxyaalaha ka midka ah anyway marka xanuunada la garanayo waxyaalaha keena waxaa loo qaybiyaa labo communicable disease ama infectious disease iyo xanuunada loo yaqaano non communicable disease marka communicable disease-ka kusoo gudbin doono waxaa marka xanuunada faafo ama la isqaadsiiyo waxaana keena marka microorganism marka germs baa keena microorganismska marka ay ka mid yihiin bacteria virus fungi parasite iyo prions marka waxyaalaha dulinka ama germsyada ayaa keena kuwan non communicable disease inta badan waxaa lala xiriyaa inay inherited disease ama waxa loo yaqaano waxa la yiraahdaa sedentary lifestyle inay la xiriiraan marka insha Allah anaga kan ka hadli doono waxa weeye waxa loo yaqaano communicable disease xanuunada communicable disease-ka bal qaabka ay ku gudbaan ama silsilada isku xiran ay marka ay ku gudbaan waxa uu yahay iyo waxaan sharxi doonaa marka iyada qaabka looga hortagi doono insha Allah communicable disease-ka maxaa lagu qeexitaan ahaan communicable disease-ka waxa la yiraahdaa ama lagu qeexaa is an illness marka waxa la yiraahdaa waa xanuun due to marka waa illness bal yiraahdaa waa xanuuno due to uu sababay specific infectious agent marka xanuun side qaas ah marka infectious agent marka leenahay waxyaalaha marka germska oo keena marka biologicalka marka germska ama dulinka noolaha marka waxa xanuunadan infectious disease-ka communicable disease-ka la isqaadsiiyo ama marka fida waxa keena marka germs ama it is toxic marka germska xilliyada qaar buu keeni waxa keeni kara wax loo yaqaano toxic marka product sunta uu soo saaray marka sunta waa maxay oo marka germska uu soo saaray xanuunada qaar sida hadda cholera oo kale marka ka hadlayno shubanbiyoodka waxa la yiraahdaa cholera toxins in la yiraahdo sun la yiraahdo ayuu leeyahay marka ama xanuunada food poisoning-ka qof cunaan ku sameeyo koornaya marka xanuunada waxa la yiraahdaa ama germska sidiisa u keenay ama toxic uu soo saaray marka capable of being kaasoo marka awoodo directly si toos ah or indirectly si dadban transmitted inuu u kala gudbo marka xanuunka la isqaadsiiyo uu marka from man to man xanuunada qaar baa waxa jira qof baad ka qaadaysaa marka qof baa qof kale ka qaadaya oo cycle-kooda ama noloshooda markay sida ay tahay wax loo yaqaano xanuunkaas waxaad ka qaadi kartaa oo germska uu ku nool yahay oo gudbiyo waa only man to man ama human to human marka qof baa qofka kala qaadsiin karay marka xanuunada qaar noocaas jira marka or from animal to man ama xanuunada qaar baa qofka uu ka qaadi karay wax loo yaqaano maxay marka xoolo ama xayawaanka oo marka kuwan waxa noqonay zoonotic disease-ka kale marka xanuunada laga qaado marka xoolaha brucellada kale anthrax-ka xanuunka kudka loo yaqaano kaleeto iyo xanuunada marka la rabies-ka kale ama xayawaanada kale qofka marka eeyga ama bisadaha ama waxyaalaha la midka ama ariga ama marka xoolaha or from animal to animal germsida qaar infectious agent-gana waxa weeye waa xanuunada qaar neefkii bukay ayaa wuxuu qaadsiinaya neef kaleeto marka or waxaan ka qaadi karnaa xanuunada qaar waxa laga qaadi karaa from the environment marka deegaanka through air marka hawadii kaleeto qof baa TB qabo kaleeto qolkan oo kaleeto ku jira marka iyada waxa loo yaqaano qolkii oo kaleeto waxa qofkii uu ku qufacay ku inay soo neefsado kaleeto waxa laga yaabaa qof kale markuu soo galay hawadii oo kaleeto oo infected ah oo marka polluted noqotay inaad marka qadna hawadii neefsato oo ka qaado ama sidoo kale waxa loo yaqaano
qof baa xaka meelaha ku tufay way qallashay nasbay noqotay inaad dib inhalation ugu sameyso adiga aad ka qaado ama contaminated water biyihii wasaqaysnaa oo kaleeto inaad biyo aad cabto markaa wasaqaysan contaminatedna qofkii uu qaado or food ama cunadii marka hawadii oo wasaqaysan air polluted ah ama water contaminated ama food contaminated to man marka qofkii inuu qaato marka hawadii ama biyihii ama cunadii in short xanuunada communicable disease waxa la yiraahdaa waa xanuuno la isqaadsiiyo ama fido ama la isu gudbiyo kuwaasna waxaa keenay jeermis ama waxaa keenay jeermiska sunta uu soo saaro markaa waxaana u qaadi kartaa markaa si toos ama si dadban waxaad ka qaadi kartaa qof kale ama waxaad ka qaadi kartaa markaa xoolo ama xayawaanka ama waxaad ka qaadi kartaa waxa loo yaqaano markaa deegaankii oo markaa hawadii wasaqaysan biyihii ama cunadii markaa okay markaan eegayno chain of disease transmission silsilada ay xanuunada ku gudbaan xanuunada silsilada ay ku gudbaan markaan eegayno the 6 factors lix shay ayaa markaa involved ku lug leh in the chain silsilada of disease transmission oo xanuun ku gudbo xanuunka markaa qaabka ama silsilada uu ku gudbo markaa eegayna lixdan shay baa ka mid ah markaa kow infectious agent in la helo shaygii xanuunka sababaya ama keenaya marka xanuun dhaliyihii waa in la helaa markaa waa in xanuun dhaliyihii markaa la helo tusaale ahaan haddayn soo qaadno common ahaan haddayn soo qaadno mid ka mid ah xanuunada fecal oral disease ay nidhaha markaa salmonella typhi bacteriada keenta xanuunka loo yaqaano typhoid ama typhoid markaa waa jeermiska resafio halka uu jeermiska uu ku nool yahay halkuu jeermiska uu degan yahay ku nool yahay wuxuu noqon karaa halkuu jeermiska uu ku nool yahay wuxuu noqon karayaa markaa saddex qaybood markaa wuxuu noqon karaa halkuu jeermiska uu ku nool yahay saddex qaybood in xanuunkan aad ka qaadid ama uu waxa loo yaqaano waxa weeye markaa inaad ka qaado markaa waxa loo yaqaano man qofka xanuunka qof buu degay ama xanuunkan waxaad ka qaadi kartaa xanuunka waxa loo yaqaano markaa animal or waxaad ka qaadi kartaa marka waxa loo yaqaano inanimate yes madam I'm calling glass let me call you later okay waxaad ka qaadi kartaa markaa inanimate marka halku shayga jeermiska xanuunsidihii uu degan yahay marka ama qofba xanuunka degan yahay ama xayawaankii ama waxa loo yaqaano wuxuu degan yahay markaa shay aan noolayn waa halkii xanuunka markaa uu deganaa okay marka T typhoidka markaan soo qaadano bacteria keento loo yaqaano salmonella typhi wuxuu bacteriadaas aan ka qaadi karo wax loo yaqaano qofkii bay ku jirtaa marka waa man bottle of acid qofka xanuunka qaba halka uu jeermiska ka soo baxayo marka halka jeermiska waxa uu ka soo baxay waxa weeye waa GIT qofkii inuu yacni uu saxroodo markaa a means of transmission halka xanuunka uu ku gudbi karayo qaab ku gudbi karo waxa weeye saxarada inay soo gaadho waxa loo yaqaano waa maxay marka ama biyihii ama cunadii ama qofkii waxa loo yaqaano markaa gacantiis markaa direct transmission toos ma uga qaadi kartaa indirect waad uga qaadi kartaa marka portal of entry waa qofkan halku xanuunkii uu ka soo gelayo marka waa mouth inaad cunto ama aad cabto marka waxa weeye marka cunadii ama biyihii oo wasaqaysan ama qofkii cunadii inay saxarada gacantaada ay soo gaadho kadibna marka afkaaga ay soo gaadho marka waa 5 afiski marka uu xanuunada fecal transmission marka ay ku gudbi jireen finally qofkii marka susceptible host waa qofka xanuunka u nuglaa qofka xanuunka waa maxay u nuglaa marka silsiladan baa u baahanay xanuunka qaabkaas ugu gudbaya qaabkii loo kala goyn lahaa anyway infectious agent waa maxay waa shayga xanuunka keenaya ama xanuunkii sababay number 2 resafio waa halka xanuunka uu deganaa bottle of acid halku xanuunka degan qaabka uu jeermiska waa maxay oo uga soo baxay mode of transmission waa habka xanuunka uu ku gudbay bottle of entry waa qofkii kala xanuunka halka uu ka soo galay qaadihii susceptible host qofka inuu xanuunka u nugul yahay iyo marka qofka xanuunka u nuglaa marka lixdaas ayaa waxa la yiraahdaa lixdaas shay ama lixdaas factor ayaa waxay ku lug leeyihiin ka qayb qaadashada xanuunka oo maxay silsilada uu xanuunka uu ku gudbay mid u dul istaagan marka infectious agent waxa la yiraahdaa any microorganism marka waa bullin ama germs kasta that can cause kaasoo sababi kara a disease xanuun such as sida waa bacteria virus parasite fungus iyo waxa loo yaqaano
ama barrier ayaa loo yaqaanaa marka waa shayga xanuunka dhalinaya markaa reasons markaa sababaha that organism markaa jeermiska ama xanuun dhaliyahaasi will cause uu sababaya an infection xanuun markaa sababaha shayga jeermiska xanuunka keenaya sababo markaa xanuunka uu u dhaliyo marka waxyaala special waxyaala qaas ee uu leeyahay jirta markaa virulence waxaa ka mid ah markaa awoodi waa markaa ability to multiply jeermiska waxa awoodda uu ku tarmayo and grow uu ku korayo markaa iyada shayga markaa wuxuu leeyahay awood ayuu leeyahay markaa xanuunka uu ku keeni karayo uu ku dhalin karayo markaa invasiveness shayga jeermiska ah awood uu u leeyahay intuu dhiigga uu ka soo baxo kale uu u geli karayo tissue markaa nudihi ability to enter the tissue pathogenicity waa waxa weeye waxa loo yaqaan awooddu xanuun ku dhalin karayo markaa jeermiska patho marka waa disease genicity formation markaa ability marka awoodda to cause oo xanuunka u leeyahay waxa loo yaqaan maxay disease inuu xanuun dhaliyo marka reservoir waxa loo yaqaana of infection reservoir of infection waa marka halka xanuunka uu deganaa wuxuu noqon karaa halka xanuunka uu degan yahay ama uu ku jiro person qof buu noqon karaa xanuunkan qabo uu gudihiisa ku nool yahay animal xayawaan buu noqon karaa arthropod marka cayayaankaas noqon karaa waxa loo yaqaana lixda lugoodla plant wuxuu noqon karaa dhir soil ciidi or substance shayad kale or combination of these mise inta la isu geeyay in which kaasoo infectious agent marka jeermiska xanuun dhaliyaha ah dullinka microorganismka normally sida caadiga lives uu ku nool yahay marka sida caadiga ah jeermiska wuxuu iskaga nool yahay marka qofkii and multiply wuxuuna waxa loo yaqaan waa maxay wuuna ku tarmaa halkaas si caadi isaga nool yahay wuu isaga tarmaa marka iyada sababtuna waa maxay on which kaasoo it depends primarily halkaasoo uu marka koowaad uu ku tiirsan yahay for survival si uu ugu noolaado horaantii halka wuxuu ugu tiirsan waxa weeye ama qofka ha ahaado ama xayawaanka ha ahaado ama cayayaanka ha ahaado ama dhir ha ahaado ama ciid ama biyo wuxuu doonaade hoy ama gabaad ahaan halka magangeliyahaan buu ugu nool yahay where it reproduce halkaasoo ku tarmaya itself halkaasoo ku tarmaya in such a manner that it can be transmitted ugu gudbi karayo to susceptible host qofka u nugla marka xanuunkan jeermiska halkan uu isaga nool yahay marka hore gabaad ahaan iyo nool ahaan buu soo doontay kadib uu iskaga tarmaya qofkii marka iyada xanuunka saas ku qaadaya kadib waxa laga yaabaa qofkii ama ha neefsado ama ha saxrado ama dhiiggiisii hodhow marka ka soo baxaya halkaas qof kale intuu haddana xanuunka marka jeermiska uu soo gelaya marka erayga macnahaan in fahmin waxa weeye reservoir waa halka uu jeermiska uu marka uu ku nool yahay gabaad ahaan ugu nool yahay marka reservoir waxa loo qaybiyaa saddex xanuunku wuxuu ku noolaan karaa human reservoir animal reservoir iyo non-living thing marka non-living thing markaan line oo kaleeto wuxuu isaga noolaan karaa jeermisyada qaar ciidoo kaleeto ayay ku nool yihiin marka qaarna xayawaanaadkay ku nool yihiin qaarna waa maxay human marka human to human transmission ma qaab noqon karaya qaar animal to human transmission qaarna waxa loo yaqaan non-living thing to human buu noqon karaya marka reservoir marka noocyadiisan eegna there are numbers of important pathogens waxa jira waxa loo yaqaano dhowr marka ama tiro xanuun dhaliya ah kuwaasoo muhiim ah marka waxa jira there are number waxa jira tiro marka importance muhiim ah pathogens marka xanuun dhaliya ahaan ah marka xanuun dhaliya ah xanuun keeni karay sababi karay hadda in microbiology ku noqono microorganism waxa loo qaybiyaa saddex normal flora opportunistic iyo pathogenic balina mid normal flora anaga faa'iideen ku qabno waxaan yeelayna mid opportunistic oo naga faa'iideysanay marka difaaciina hoos u dhaco ama waxa loo yaqaano haddii kala qof waxa loo yaqaano canol ama wax la gelay naga nadiifin waayo ku soo raacay ama pathogenic difaacooda wanaagsan xataa haddii tirada infective dose-ka xanuun oo kuu keeni karayo jeermiska uu jirkaaga soo galo waxa weeye waxa loo yaqaano aad qaadi karta marka waxaa jira tiro muhiim ah oo xanuun dhaliya ah that specifically qaas ahaan modified marka u kala goosho to man marka waxa loo yaqaano man to man ama human to human such as measles oo kale jadeecadoo kale ilmihi yaraa ee qabay marka mid kaleeto lala seexiyo xanuunkii qabo wuxuu keenaya ama ku qufaco ama ku hindhiso inuu sidaa ku qaado marka syphilis oo kaleeto qofkii marka bacteriada Treponema pallidum oo kaleeto bacteria qofkii qof galmo la sameeyo ama dhiig lagu shubo toos marka sawa typhoid feverka typhoid inkastoo laga qaadi karayo wax loo yaqaan xilliyada qaar iyadaas loo qaybiyaa marka laba nooc typhi ama salmonellada marka bacteriada typhoid keento waxa loo qaybiyaa typhi iyo paratyphi
marka ama enteric fever iyo paratyphic AMDNC marka paratyphic oo kale waxa laga qaadaa lagu yiraahdo marka animalka kale marka digaaga ama beedka ama waxyaalaha la midka anyway cycle-kooda kuwan wuxuu ku gudbaa waxa lagu yiraahdaa qof xanuunka qaba ayaa qof kale ayaa qaadsiin kara marka nolol meertadooda waxay ku gudubtaa waxa weeye ama ku xiranta u kala goostaa qof xanuunka qaba from human to human ayuu inta badan u kala gudbaa animal Africa waxaa jira infective agent that affects marka some infective agents qaar kamid ah xanuun dhaliyaasha jeermisyada xanuun marka xanuun fidiyaasha ama xanuun dhaliyaasha that affect man oo saameeya ama ku dhaco waxa loo yaqaan human being have their reservoir ayaa waxay leeyihiin ama halka ay degan yihiin waxa weeye in animals marka waxa xanuunkan aan ka qaadano oo ku nool yahay oo waxa weeye waa maxay animal waxa loo yaqaan zoonosis ama zoonotic xanuunada ay ka qaadno marka xayawaanka ama xoolaha it applies waxa leeyahay to disease transmission from animals to man marka xanuunada zoonosis waxa lagu qeexaa ama la yiraahdaa waa xanuunada ay ka qaadno marka animalka xayawaanka to human marka under natural conditions sida caadiga ama dabiiciga tusaale ahaan bacillus anthracis cudurka loo yaqaan kudka oo kale marka bacteria keento anthracis marka kudka bacteria keento loo yaqaan bacillus anthracis waxa laga qaadaa marka xoolaha oo neefkaas kudka qaba hilibkiisa in cunno in ka qaado karno ama waxa loo yaqaan hortiisa kale ku soo gaadhay marka anthracis bacillus marka xanuunka anthracis kudka kala saddex nooc loo qaybiyaa qaar waxa loo yaqaan wuxuu yahay respiratory anthracis qaarna gastrointestinal anthracis qaarna waxa la yaqaanaa skin anthracis marka ama cutaneous anthracis respiratory anthracis gastrointestinal anthracis iyo marka iyo wax loo yaqaan cutaneous haddii nabar hore meesha ku yaalo kaleeto oo bacteria ka soo gasho kaleeto maqaarka sidaas ugu fidi karaya haddii qofkii hilibka aan kala cunno ama haddii maqaarka kaleeto inhalation ku sameeyo dhagorti anyway marka waxa loo yaqaan xayawaanaadka ama xoolaha xanuunada laga qaado human being waxa loo yaqaan zoonosis marka non living things ka ayaa qaarkood jiro many of these agents are basically xanuunada jeermisyada qaar ayaa qaas ahaan ama waxa loo yaqaan aasaasan waxay ku nool yihiin waxa loo yaqaan marka saprophytes loo yaqaan waxay ku nool yihiin ciidda iyo biraha iyo waxyaalaha noocaas saprophytic waxa jira marka qaar la yiraahdo jeermisyo oo marka isaga nool marka waxa loo yaqaan marka ciidda iyo waxa loo yaqaan biraha mirarka waxyaalahaas iskaga nool yihiin adig dead materials ka kale inorganic materials ka kale ay inta badan isaga nool yihiin oo quutaan saprophytic bacteria hadda soo qaadanoo kale ayaa jirta marka living waxay ku nool yihiin soil ciidda and fully adapted waxa la qabsan to living ku nool freely in nature marka ciiddaas iyo birahaas iyo waxyaalahaas ay ku nool yihiin tusaale hadda soo qaadano non living things kaas waxaa ka mid ah Clostridium tetani bacteria loo yaqaan Clostridium waxaa loo qeybiyay 6 species laba ka mid ah tertium iyo septicum inta badan waxa la yiraahdaa normal flora laakiin afarta kale tetani oo ku nool marka waxa loo yaqaan ciidda iyo birahaas waxaa jirta Clostridium botulinum Clostridium difficile Clostridium waxa loo yaqaan tetani iyo Clostridium perfringens tagaas gaagida keenta cudurka botulinum keenta taas waxa loo yaqaan difficile ay keenta waxa loo yaqaan gastrointestinal marka ama diarrhea disease antibiotic resistant anyway marka waa naqaanaa qof hadii makiinad ama wax miriray meelaha uu ku jiro markiiba qofku waxa la yiraahdaa irbada tetana ay ku muddo sababtoo waxa ognahay in ay tetanada marka isaga noosha marka birahaas iyo waxyaalahaas inay ku noosho okay markii jeermiska halka uu ku noolaa uu ka soo baxo waxaan oranaynaa portal of exit baan oranaynaa this is the site tan waa halka ama goobta through which agent jeermiska escapes uu ka soo baxay from the reservoir halka uu ku noolaa example waxa ka mid ah gastrointestinal tract oo kale marka inay fiber fever ko kale waxay ka soo baxaysa marka jeeti qofkii inuu saxaroodo oo kale marka ama bacillary dysentery ama xanuunka loo yaqaan xundurta ama senteriyada marka bacteria keento bacillary ama shigellosis xanuunka ama typhoidka bacteria keenan inta badan qofka waxa ka soo baxaa maxaa inuu GIT marka qofka saxaradiisa bay soo raaceen respiratory disease ko kale marka respiratory qaarkoodna ka soo baxaan hawo mareenkii oo waxa naqaanaa markaasi cudurka marka tuberculosis qaaxada ama kuma kulduriga tan kale qof waxa ka soo baxayaan isagoo kugu neefsado ama kugu qufaca marka ayda waxa keeni karta from mouth to nose bay ka soo bixi karaan marka respiratory ahaan bay ka soo baxayaan marka waxana portal of exit qofka xanuunka qabay ee adigu qaadsiinaya jeermiska halkeedu ka soo baxaya marka qofka xanuunka qaba calooshiisa haduu xanuunkii uu ku jiro
saxar ahaan buu markaa iyada uga soo baxay hadduu sanbabkiisa ku jirana neef ahaan buu uga soo baxaya markaas neef ahaan ayuu uga soo baxaya saasuu markaa jeermiska halkaa hoygu u waa ka soo baxaya mode of transmission qaabkuu ku gudbaya markaa iyada refers waxaa laga tixraa ama loo tixgeliyaa to the mechanism habka by which kaasoo an infectious agent jeermiska keenaya is transferred uga soo gudbaya markaa iyada from one person to another qofka xanuunka qabay uu ka imanayo qof kale cusub oo xanuunka uu soo gaaray marka mode of transmission waxa la waa habka qofka xanuunka qabo marka jeermiskii uu uga soo baxay uga soo gudbay uu u soo gudbay qof cusub oo waxa loo yaqaan maxay xanuunka aan qabin banada taana transmissionka gudbitaanka ama fiditaanka xanuunka waxaan u qaybnaa labo direct si toos ah iyo indirect iyo si dadban marka direct si toos ah markaan eegana direct contact buu noqon karaa marka occurs when there is a contact wuxuu inta badan uu dhacaa when goortii there is a contact uu jiro marka istaabasho qofka marka uu xiriir aan samayso taabashay dhacdo of skin maqaarkiina kale skinkaas taabteen oo kale ama mukoosaha marka xuubka oo kale waxa loo yaqaan dibniyo kale afka mukoosahaasi ama waxa loo yaqaan conjunctive issue kale infectious germski directly from person or from transported animal marka si toos ah xanuunka waxa loo yaqaan inaad uga qaado marka xayawaanka ama qofkii marka xanuunka qaba tusaale qofka xanuunka qaba kala dayn soo qaadano touching uu ku taabtay oo kale kissing qofka uu ku dhunkaday oo kale biting qofka uu ku qaniinay or passing through the bath canal ilmihiira kale marka hooyada dhalayso kale bath canalka ama dariiqo soo maray kale hadii amniotic fluid waxaas infected ka yihiin oo qofka uu soo qaaday marka dariiqa ilmihi uu ku dhalanay uu soo maray marka during sexual intercourse qofka toos galma qofka oo la sameeyay this maxaa way dariiqada uu qofka uu xanuunka si toos ah qofka uga qaadi karaya marka tusaale ahaan xanuunada haddaan soo qaadanay HIV AIDS xanuunada sexual transmission galmada ku fidoo kaleeto sida HIV AIDS oo kaleeto xanuunada rabies oo qof wax loo yaqaano eyga ku qaniino kala ama bisadahaasi waxyaalaha la mid wuxuu noqon karaa kaleeto direct projection qofka si toos ah ku marka iyada ku soo gaarsiiyay projection oo qofka soo tuuro ama uu soo saaro marka is transmission waxaan naqaanaa gudbitaanka by projection qofka inuu soo tuuro ama soo saaro asaliba caliyo droplet marka candhuufta kale ama caliyada kale qofka waa maxay in uu marka iyada ay ku soo gaarto oo soo saaro during projection marka qofka uu soo tuuro cavin uu qufacayo oo kale markuu qufaco candhuufta ama neefta ka soo baxdo kale marka sneezing wuu hindhisay singing wuu heesay oo kale qofka spitting oo kale waxa loo yaqaan qofka sida maska kale caliyada kale uu sayriyay or talking hadal markuu qofku waxyaalahan kale uu sameeynaya qofku markuu hadlayo oo kale uu heesayo oo kale hindhisayo kale waxyaalaha waxa ka soo baxaya marka waa maxay candhuuf ama caliye ayaa ka soo baxaysa taasoo kale ku soo gaartay taasoo kale marka sida waxay kugu soo gaari kartaa marka common coolka duriga oo kale ama tuberculosis wax la placental hooyadii oo kale wax loo yaqaan ama vertical transmission ilmihi uurjiifka ah oo kale ayaa hooyadu waxay u gudbisay intuu uurka ku jiray marka xanuunka marka transmission waxa nidana from mother to fetus hooyadana xanuun u gudbiso to the fetus marka uurjiifka oo kale marka through the placenta soo gudbay waxa ka mid syphilis oo kale HIV AIDS xanuunadaas kale hooyada marka ay qabto marka indirect transmission waxa ka mid ah marka waxaan qaybnaa isaga types indirect transmission waxaan qaybnaa laba nooc vehicle borne iyo factor borne vehicle borne ko kaleeto marka xanuunkii ama germska waxba qaadaya marka transmission occurs wuxuu dhacaa through the indirect contact tusaale ahaan marka inay qofkii si dadban oo kaleeto wixii uu ku soo gaaro with inanimate objects or fomites waxa noole bedsheets go-iyo kaleeto cisbitaalada kale yaalay skin disease lagu kala qaadi karayo kaleeto tuwalis ko kale qofka aad kula meerato la marsato qoyska ciyaar ku ciyaaraan laboratory instrument qalabka shaybaar oo kale qof la isticmaalo surgical instrument qalabka qalliinka oo kale qof kale xanuunka qaba qof kale uga gudbin karaya oo anaga nina qalabka shaybaarka iyo waxaana qaarne way use one time wala tura qaarne in sterile lagu sameeyo kale qalabkaas qalliinka marka as well as waxa kale la mid ah cunadii oo kale biyo oo kale IV fluids ko qofka kana wax marka lagu xiraamay bil lagu mudaada meesha laga nadiifin waxyaalahaas oo dhan waa qaab indirect oo xanuunka uu ku gudbi karay marka factor bonko kale waxa la yiraahdaa waxa xanuunka qaadaya marka iyada noole germs ba xanuunka qaaday
the infectious agent marka James is conveyed ayaa wuxuu qaadaya gaarsiinaya marka waa maxay by arthropod marka cayayaanka to host qofka marka arthropodiskii kaleeto marka mosquitoda kaleeto flieska tuqsigo kaleeto bahasha loo yaqaano marka waxa kale qaadi karaya marka shilintii oo kaleeto marka shilintii waxa loo yaqaan kaneecada tuqsiga waxyaalahaas oo kaleeto ayaa xanuunka marka waxa ay dadku u kala gudbinayeen tusaale ahaan waxa uu qaybinaa factor bomka labo biological iyo mechanical marka shayga jeermiska ahaa in uu noloshiisa qayb ka mid ah ku qaato marka wax loo yaqaan shayga gudihiisa ama mechanical ahaan shayga uu qaado kaleeto duqsiga oo kaleeto lugiisa iyo garbiisa oo kale inuu ku qaado oo saxro ku soo istaaga ama wixii uu ku dibno qofkii uu saa ugu yimaado anyway labadaas si kala eegan doona mechanical biological factor ka is a factor waa shay iskoolad la biological factor if the agent hadii germs multiplies oo ku tarmay in the factor marka shaygi xanuunka qaadaya gudihiisa before transmission intuusan gudbin waxa tusaale kale ta anaphylaxis mosquito xanuunkii wuxuu ku dhacayaa marka hore wax loo yaqaan kaneecada markay infected noqoto ay iyadana waa maxay ay qof kaleeto sii qaadsiinaysa marka tusaale ahaan xanuunka dengue fever ko kaleeto wuxuu ku dhacayaa marka wax loo yaqaan mosquitadii qayb nooc loo yaqaan Aedes mosquito Aedes ama mosquito Egypt nooc ha noqoto marka kaneecadu xanuunka ku dhaco kadib nolosheedu iyada qayb ka mid ku qaadanaya iyana calooshooda ku dhacaya mindhiciradii kadib uu soo soconaya kadib wuxuu imanaya wax loo yaqaano qaybta glandiskii marka qanjidhadii kadibna markay qofka ay qaninto ay istiraado dhiigi candhuufta iskaga xid oo meesha ka qanintay candhuufta marka iyada uu germs la soco asaas qofkii anyway nolosha germs qayb ka mid ah duu germs gudihiisa uu xanuunsidaha uu ku qaado xanuunsida shayga xanuunka qaada marka factorka ayaa la oranay biological mechanical factor waxa uu naqaan factor iskoolad waxa la mechanical factor if the agent is directly infective to another host hadii xanuunkii xanuunsidihii uu xanuun inta toos u soo qaado adiga uu ku qaadsiin karay marka without having to go through period of multiplication uma baahna inuu ku dhex tarmo gudihiisii wax noocaas oo ku korato uma baahna the factor simple carries marka xanuunsidihii ama gudbiyihii si fudud buu germska u soo qaadaya and carries the agent it is body parts qaybo jirkiisa ka mid ah legs lagu kala ku soo qaadaya proboscis ko kaleeto ama prospox ama wuxuu ku soo qaadaa baalashiisa ama garbiisa to provide u gaarsiis susceptible host marka biological factor ka wax loo yaqaano factor bonk waxaan qaybnaa labo biological factor iyo mechanical factor marka anyway tusaale waxa ka mid ah flies duqsiga kaleeto ama mechanical factor way for transmission of trachoma marka germska kaleeto waxa weeye chlamydia bacteria soo qaaday ilmihi kale wax loo yaqaan ayuu ishiisa ama conjunctivitis ayuu qofka kaga dagay kadibna saas kula uu ku qaadsin karaya ama wax loo yaqaan saxaro ku soo dulstaagi karaya cunada ku dul istaagaya marka ayade taas ku gudbin karaya marka waxa kamid ah wax loo yaqaano bahasha iyana waxa kamid ah bahasha ay noqon baranbarada iyo waxa la midka okay airborne xilliyada qaar waxa jirto airborne xilliyada qaar bisna indirect transmission uu ku gudbaa which may occur by dust or droplet nuclei xilliyada qaar oo kale wuxuu ku gudbi karaa qof baa xaako kale meel ba ku tufaya way qalalaysaa dhas bay noqonaysaa kadib dhaska markay noqotay qalasho waxay noqonaysaa dried residue of aerosols kadibna qofka xaakada ku tufo markay qalasho kadib hawaahan buu qofku u qaadan karaa tusaale when pulmonary tuberculosis patient kan qof cudurka qaaxada ama TB qaba ayaa qufacay the emit many aerosols which consist the agent of tuberculosis qofku wuxuu soo gudbinayaa soo saaraya marka bacteria fara badan ay la socoto marka xaakadii iyo waxa loo yaqaan iyadoo marka xaakada hadda dhulka ku soo dhacaysa hadda cufkeeda xiriiriyo kala hawada suspended ku noqonaysa taas suspended hawada ku noqoto kala cufkeeda qofka qolka soo gala ay neefan ku qaaday tii dhulku dhacdana way qalanaysaa kadibna waxa noqonaysa waxa loo yaqaan iyadana hawaahan this aerosols dry droplet will nuclei will be formed marka way hawaahan waxa waxa loo yaqaan marka siiga ahaan droplet nuclei will remain suspended in the air for the center qaar kamid oo kala cufkeeda hadii uu yar yahay kaleete hawada wax loo yaqaan candhuufta uu qofka soo saaro hadii cufkeeda yar yahay waxay noqonaysaa hawada joogaysa tii qalashana waa maxay waxay noqonaysaa wax loo yaqaan qofkii ayaa liq doona marka when another healthy susceptible individual qof oo u nugul oo kale markuu hawada qaato will hel uu hawada qaato nuclei will and became infected with tuberculosis qofka soo markaa oo ku qaaday infection agentiga waxaan qaybnaa saddex wax loo yaqaan disease transmission ka waxyaalaha factors ka saameeya
disease transmission waxaa u qaybina saddex agent environment iyo host agentiga waxyaalaha u suurtagelaya xanuunka keeno waxyaalahan baa iyagana kamid ah markaa port of entry waa ku xanuunka germska uu qofka uu ka soo galayo infectious agent requires wuxuu u baahan yahay to enter the host markuu transmission soo gudbo qofka meel uu ka soo gala marka iyada halkuu ka soo galaya port of entry ayuu naqanaa through specific parts qaybo kamid ah jirka ayuu ka soo gali karaya germska xanuunka dhalinaya markaa rootku ka soo gali karaya qofka xanuun respiratory tract wuxuu ka soo galaya systemka markaa hawo mareenka some infectious agent enter the body waxay ka soo gali jirka in air breathed into the lung hawadan aan qaadan waxaa kamid ah cudurka qaaxada oo kaleeto dhammaan airborne disease oo dhan baa kamid ah some agents kaleeto waxay ka soo gali karaan wax loo yaqaan gastrointestinal tract waxay ka soo gali karaan marka afka infectious agent enter through the mouth afka ka soo gali for example diarrheal disease ko xanuunada keena wax loo yaqaan shubanka kaleeto marka the mouth afka ka soo gali karaan marka adigoo biyo cabay ama cunno cunay ama waxyaalaha marka aan biyo cunno nadiifeen ama gacmihii qofka oo nadiifeen qaarkood waxay ka soo gali karaan skin marka skinka provides a natural barrier wuxuu haystaa waxyaalaha dabiici ah marka against the entry of many infectious agents si badan kama soo gali kareen waa wax loo yaqaano waxyaalo badan buu first line defense baa loo yaqaanaa maqaarka waxyaalo badan maqaarka ma gudbaan laakiin tusaale ahaan cudurka duumada kale ama kaneecada malaria ama cudurka loo yaqaano kale filariasis ko kale marka ada baaraseedada qaarkood plasmodium species ko kale ha noqoto fificus ovale ha noqoto malaria falciparum nooc doon acanolis nooc doon get into the body waxay jirka ka soo galaan when an infected mosquito bites markay ku qanto the skin to suck the blood say dhiig kaaga dhugo qumka iyadoo kale afkeeda kugu mudaysa marka hababka ay soo sheegeen oo xanuun ku gudbi karaya waa noocan direct waxa weeye qofka kale kiisan sameeyay iyo waxyaalaha ama direct saka sameeyay interior marka saas kale kugu soo gali karaya ama qofka kugu neefsado oo kaleeto ama gacmihi oo taabato indirectga iyadana wuxuu kugu soo gali karaya wax loo yaqaan maxay marka ay hawadii oo suspended dibadda taagan ama iyadoo taasho kaleeto marka common vehicle ka waxaan ku eegnaa mid badan waa maxay marka cunadii waxyaalaha marka qalab aan nadiif ahayn kale ama cunada ama biyihii waxyaalaha kale ama waxyaalaha aan nadiif ahayn marayihii iyo waxyaalaha noocaas ay soo sheegeen susceptible host waa qofka u nugla a person who is at risk for developing an infections and from the disease waa qofka marka u nugul inuu xanuunka uu qaado several factors shayad badan make a person ay wax qof ka dhigaysaa susceptible u nugla to the disease xanuunka including ay kamid tahay young people marka dadka yaryaraha kale carruurtii aqalda dadka waaweynaa kale wax loo yaqaano carruurtii difaacooda hooseeyay dadka waaweynaa aging ahaa people are generally are more at risk marka guud ahaan dadkaas u nugul xanuunada dadka chronic disease ka qabo kale sida macaanka kaleeto iyo xiiqda iyo dhiig karka iyo wax xanuunka waxyaalaha la midka conditions that weakening the immune system xaaladaha difaaca qofka marka daciifiyo kale sida HIV oo kaleeto certain types medication dawooyinka qaar kale qofka haduu qaato oo kaleeto cancer hada waxyaalaha la midka loo qaato ama autoimmune disease oo kaleeto qalabyada invasive device ka qalabyada qofka marka jirkiisa la geliyo kale sida feedingka oo qofka ama angiotype ko waxyaalaha wax cunooyinka lagu siiyo kaleeto dadka malnutritionka waxyaalahaas oo dhan ba qofka waxa uu nugleen karaya marka insha Allah inta qaybta horeetan ku soo gudbina qaybta labaad waxaan kaga hadli doonaa waxa loo yaqaano carrier-ka dadka xanuunsidayaasha ah iyo noocyada carrier-ka loo qaybiyo iyo prevention-ka insha Allah ayaynu ka hadli doonaa marka insha Allah isla hadda inuu soo gudbin doonaa qaybta ku xigta haddii Allah inoo saamaxo marka